gabadha la dhaho Sacaad way isoo xiriirtay aniga maanta waxay igu tiraahday message bay ii soo qortay waxaan ku yiri walaal macaan aniga waa la dulmaaya ay wax noocaas waxaan ku yiraahday lambarkayga qaado aan isweydiisana aan ku dhageysan sida hooyo aan u dhageysan meesha qisada ay ka dhacaysay iyo lacagta aad ku baxday يعني سؤال waxaa la sheegay in meeshaas ay joogtay shaqeynaynin wax shaqo aysan haynin lacagna way ku baxday marka inaan yani su'aalo weydiiyaan rabo oo walaal macaan yani ma aragtay maxaa la dhahay goorma kala dhamaateen suuq ugu furay ninkan yani maskaxdiisa waa lagu darsamay museeyigii uu dhintay Allah u raxmo diiday inuu ka furo see yani weygeed u martay waxyaalo badan inaan weydiiyo waan rabay mana raba ayada laftirkeeda in lagu khaldamo waa gabar Soomaaliyeed laakiin waxay igu tiri su'aalo maya kuma ku siinayo nambarkayga Zahra waa iduubaysaa igu tiraada mirabi waa iduubaysaa saar UK ma kula hadlaay igu tiri because waxaan rabaa ayadana codkeeda bal in la dhageysto xataa waxay idhaahday marka maxaa la dhahay wax dad uu leeyahay malaha hadaa dad u noqonaysin xamal waa caawinaysi caawi aniga inaan waxba yeelin isaga afkiisa u sheegay tiri intaasaan su'aadna oo qoraal ah aan isdhaafsanay aniga ayada hooy waxaan rabaa xagga abaay waxyaalo badan ay mataqaana noo bayaanisay waxa u baahanaa adna isla sidoo kale waxyaalo kale aan ku weydiino noo bayaaniso مثلا حلقة جورسناي تاريخ جورسناي حلقة قبل كلا تجاه ما نشرح كرتها. أنا أردو وحن جوجا سجاد السنة هذه يجينا سنة بقرت. وقرت. حاجة وحن جوجا حاجة سعودي أنا وحن جوجي أنا سعودي عشان يتمن سنة ما جوجي. طبعاً لما سنة بينها طبعاً يصدق سنة واحد تاريخ عطام فيريو طبعاً يصدق سنة السعودية جوجنا صح واقرتي واقرتي أنا تاريخ دوان هيا وقتك أوكي قرت هاي ما شرح بل قصنا ويلك أنت لاقي هذه ويلك حقي اسكو ويسين markii la soo tarxil abaay ee noo sheegtay adii wiilkaada xagee isku weysina caruurtaada bal noo sharax mataqaana noo faahfaahay bal hooyo أنا كوسا بلابي سبتت أنا أم كل شركة كوسا بلابي كنتير وبالله التوفيق وسيد ربنا أنا كوسا بلابي شركة يتبعارو يتبعارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتبعارو أنا كوسا بلابي أنا كوسا بلابي وحواي ويلشان أنا وجار بانوي من سعودي أنت كإمادة سعودي كان جوجي جري ويلشان هو إمادة وجار أنك كحية وأنت تعريف صدق وأنت تعريفية وحن تقني مقالنا اللي يرها الدمام مقالنا الدمام عن تقني wiilkuu shaqaysta maslax baabuur buu waday maasha Allah uu shaqaysta saxaro ka shaqaysta abdibil wadi jiray magarat uu shaqaysta wuxuu yiranaag baan rabaa waa gartay uu guursaday gabar uu guursaday abgaal ah taban bari marka isqabaan horta way kala tageen markay kala tageen haddana wuxuu guursaday gabar kale haddana oo maxaragtay jajeela ah gabadha hadda sucaad buu guursaday sucaad markuu guursaday xooluu ka bixiyey aabbaheed iyo hooyadeed lacag loo diray wuu u diray way aqalgaleen ma garad way aqalgaleen wax walbuu u sameeyey lacag wuxuu soo shaqaysanaya oo dhan iyadu wuxuu ka dhigtay sanduuq wax walbuu u dhiiban jiray wiilashana naagahooda inay aaminaan bay fiican wuu aamine waa gartay waxay samaysay qad bay hoos ka samaysan jirtay markii dambe waxay tiri walaalo waa noo soo dacweynaya qurbaan ma joog karno aniga ka warqad la iga soo wadaa oo gatay waxaan gatay leen qof iska gadaayo waan baxayaa leen baanan kusoo iibinayaa waa gartay markay Canada cagaha la heshay ay taleefon soo dirto waxay tiri aniga kuma jiri sheekadaas walaalkeen keensaday maca salaama mana isoo wici kartid naaga kala
wadwadataa soco idaaf aabihiisoo markaa noolaa wajeer jooge ee haddana soo qaraacday waxay tiri warqadayda ha layga siiyo waa gartay wax warqad siiye ma jirin wax fure ma jirin oo goobjoog u ahaa meel cidlay kaga dhaqaaqday iyadaana saa u gashay qabri un bayna gelinine meel bay kaga soo hartay haye marka qofka haddii xoolo ka maqan yihiin oo u tiirbeela u tacabeela iyo xaaskina haynin xoolihiisi uu ka naxaayo shaqaysanayo oo saxara uu baabuurkooda kuleelahaad aragtay sacuudi saxaruugooda oo jimca uu imaan jiray magaalo ay saa u gashay waa gartay marka waxadal lagama haayo isaamax lagama haayo shubkaday gashay weligay ma arag qofkaan oo kale weligay ma arag anig waa gartay qolka ma iga soo kuu diro adiga kama hadlayo laakiin fiiri waxaan dhahay aan ku dhameeyo zakariya waxaan ku dhahay maamada markii horena waan u sheegay fiiri wiilashaan laba maadaba aniga waxba kagama qaban karo horta waa rag oo waxay u baahan yihiin qof yani atleast xataa markii meesha lagu xareynayo wax u qaban karo ayada ay dhahdo wiilashaan mas-uul iiga ah waxaad samaysaa eedoy adiga wiilkan ehel ugu xiga maaragtay maxaa la dhahay waa inaad tagtaa meesha aniga yani waxaa isoo qaaday de maaragtay hee eedo naga dami dee kan walaal bal la hadal waatana islaanta zakariya la hadal maamada halo eedo salaamu calaykum eedo la hadal wiilka maamada misid walaal macaan ka salaamu calaykum eedo waan qaba qolka hooyo macaan sawirka maslaxa u saaran yahay hooyo macaan qolka soo qaba bal inaadeer lama soo qaban karo 60,000 oo Soomaaliya ku daawanayso ana wareerinina fiiri maamada ma soo qaban karo lama soo qaban karo wax idagaysta sacdi ma maqashaa udhiib bal horta ayada aan la hadalne udhiib haade tacbaanane udhiib ayada aan la meesha mamada baa yaala maamada de meesha ku dhaa marfaan wallahi markaan saa kastaban soo xiranaa badnaa maamada hal mar igu dhiib zakariya la hadal bal wiilkaan la hadal walaal iga dami kaasna la hadal eedo ma maqlaysaa eedo waan ku maqlaa wiilka muhiimadu waa wiilka la caawinayo inaa adi kaamera furatana muhiim ma ahan dadkuna codkaagu waa dhegaysteen hal mar aan kuu dhameeyo eeda aan kuu dhameeyo dee firi meeshani 55 qof oo aan kuu dhameeyo eeda waad hadlaysaa haa eeg 55,000 oo qof oo Soomaaliya ku daawanayso way adag tahay in qof la soo qabto waa lagu rafaadayaa lacagta adiga wiilashan ma ku kala soon tahay oo ma lagugu dirayaa mise mas'uuliyadeeda lagu qaadnaa waa intaaba eedo dadka kale waa la soo qabtay eedo macaan wiilasha hooyadooda nahay dadka waa la soo qabtay ani waxaan rabaa inaan dadka wax fiican u sheego oon meesha ka hadlo oo cawaankaygana la arko ma garad adiga lacag hooyo dee fiiri hooyo adaa wixii adkaynayo waad xujaynaysaa hana dhibaataynin fiiri intanoo qof badan waxaan u xiiqayna waa wiilka inaa caawino adiga lacag hadda ma lagugu diri karo wixii ma taqaano daadi akaunkaaga in lacagta lagu soo diro adoo Jordan jooga ma rabtaa wiilkaaga lacagtiisa akaunkaaga sacdiye ay haysa had lagu soo diro ma lagugu soo diro halka inta lagu soo saaro ilaa maslax halkan uu joogaaye sabro ma maqlaysaa adi lacagti ma qaadi mas-uulkeeda ma qaadi adi lacagta mas-uulkeeda intaad qaato ilmaha ma qaadi adi lacagta mas-uulkooda 100 nin oo raac fiiri eedo macaan aniga magaaladaas aniga waxaan deganahay meesha la dhaho Nairobi aan deganahay aniga xadka Kenya ma ka bixi kari 100 qof ku jirta meeshan oo raac Cabdullaahi qof un baa mas'uuliyadda ku qaaday oo rag ah waa sax laakiin dadka waa la soo qabanaa fiiri sahroy dadka waa la saarahay meesha waa la soo qaban waaya maxaa ani la igu diiday information uu faahayna ummadaan dhan adaa isku keen oo programka saari dhigayso sabro aniga ma maqlaysaa qofka folowga qofka kale isku meel ma galayaan kuna loo maqlamiya ma fahmaysa hadda ma fahmaysa waa intaas ma taqaanaa hadalka si dadka clear ugu fahmaan taariikhdiisa inay asaga hooyadiis kaligiis dhashay
in oo mataqaanaa you know mataqaanaa si degan mataqaanaa fastiga naga daa si degan oo mataqaanaa clear na u fahanno oo maasan tahay thank you waxay dhashay isagiyo wiil kale oo la dhaho Cabdulqaadir iyo hal gabara markii ay dhibaatooyinka ku dhaceen Soomaali Maxamed nin walba meel buu aaday ilaa ay hadda Soomaali qaxda waa ogtihiin oo nin walba u maaragtay meeshii life ku helay uu cararaa waxay u hayaameen oo aadeen Sacuudi Carabiya markii ay Sacuudi aadeen maamada iyo labadeeda wiil iyo gabadha labada wiilna wajeer bay ku wadatay halkaan ay joogeen Kenya iyaga wadata halkaas la aaday waxaa dhacday haddana codkayga ma maqlayaa sidii hadda markaa kula hadlaya okay ku soo celi waxaa dhacday Sacuudiga u guureen maslax Cabdulqaadir iyo weediis iyo walaashi Sacuudiga u guureen Sacuudiga markay aadeen maslax aabihiisa wuxuu baray markuu yaraa makaaniga gawaaridiisa loo fiiriyo maaragtay maxaa la dhahay darawalnimada uu yaqaanay Sacuudiga wuxuu ka helay shaqo markuu ka helay shaqadu helay waxay ahayd darawalnimo wuxuu wadaayay gaari ayuu saxaraha ku wadaayay ma fahantay marka waxaa dhacday meeshaas bay iskala qabsadeen uu shaqaysanayo wiilkan wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aad u qurux badan oo shaqaysta kadib waxay isbarteen gabadhan Sucaad ah oo xaaskiisa ahayd waxaa dhacday markaa in gabadhii uu aroostay oo reerkooda laga doontay oo aabaheed loo diray maaragtay maxaa la dhahay lacag sidaasna sidii gabar Soomaaliyeed loo dooni jiray oo loo guursan jiray ayaa loo guursan intaa kadib markuu arooskii dhacay oo ay is arooseen oo shaqadii ay u socotay oo la isku faraxsanaa waxaa dhacday in ay isku afgarteen in ay Sucaad baxdo oo boos loo gado oo lacagtii isaga uu shaqaynayay loogu gaday boos markii booskii loo gaday waxay aaday Sucaad meesha la dhaho Canada wiilkan maalin waa maslax maalin maalmaha ka mid ah asaga oo gaarigii wada ayaa wiilkan la soo tarxiilay oo Sacuudi Carabiya soo qabatay صح markii tarxiilay oo dib loo soo celiyay gabadhiina ay baxday oo Canada aaday oo wiilkaana la soo celiyay ayaa waxaa dhacday ninkan maslax aabihiisa ku deganaa wajeer waxaa la joogay markaas yimid wiilka walaalkiisa la joogay Cabdulqaadir museygii wuu dhintay Allah u raxmo intuusan dhimanin ka hor oo uu noolaa oo wiilkaana la soo tarxiilay waa sida hooyada ay sheegtay Sucaad way soo hadashay waxay tiri ninkan waxaan rabaa in laga furo ma rabo aabihiisa la soo hadashay waxay tiri adeer aadano wiilkan laga furo waxaa dhacday in uu yiraahdo museygii Allah nee aniga idin ma kala furi kariyo idinka haddaad isku garataan yani isku afgarataan waa goonideeda laakiin aniga yani reer dhisan ma duminayo dhahay museega ma fahantay marka waxaa dhacday asagay ila hadasho asagana waa diiday ma ku furaayo dhahay museygii wuu xanuunsanaaba markaas bitacbaan buuba ahaaba markiiba wuu xanuunsanaa wuu dhintay Allah u raxmo wiil yar oo marka la joogo walaalkiis ah oo asaga maaragtay maxaa la dhahay meesha jooga jiro oo xanuunsaday markii museyga uu dhintay wiilkaas meel baa lagu xareeyay oo maaragtay maxaa la dhahay cilaaj ah wiilkan oo fiican markaas laakiin weli jugtii ay ku jirto macnaha dhibaatadii yani isla hadalkii ay ku jirto ayaa waxaa dhacday in wiilkii kale uu meesha kasoo saaray uu yimaado aabihiina wuu dhintay hooyadii maaragtay maxaa la dhahay ismaysan haynin oo wadin kasoo tegay meeshaasi horta xanuunka uu ka bilowday wiilkii oo maaragtay Sucaad wuxuu tiri walaal waa sida maamada ay ii sheegtay haddana wuxuu guursaday gabar kale haddana oo maaragtay jajeela ah gabadha hadda Sucaad buu guursaday Sucaad markuu guursaday xooluu ka bixiyay aabaheed iyo hooyadeed lacag loo diray uu u diray way aqalgaleen ma garad way aqalgaleen wax walbuu u sameeyey lacag wuxuu soo shaqaysanaya oo dhan iyadu wuxuu ka dhigtay sanduuq wax walbuu u dhiiban jire wiilashana naagahooda inay aaminaan bay fiican wuu aamine waa gartay
waxay samaysay qad bay hoos ka samaysan jirta markii dambe waxay tiri walaalo waa noo soo dacweynaya qurubahan ma joogi karno aniga ka raa warqad la iga soo wadaa oo gatay waxaan gatay leen qof iska gadaayo waan baxayaa leen baanan kusoo iibinayaa waa gartay markay Canada cagaha la heshay ay telefoon soo dirto waxay tiri aniga kuma jiri sheekadaas walaalo walaalkeen keensaday مع السلامة ما أنا أسوي كرتيت ناقة كلاب وضوضة تاسعو إضاف بي سو مركا نولا وجير جوغي أي هادا نسوق راعدي waxay tiri warqada idaha la iga siiyo waa gartay wax warqad siiyo ma jirin wax fure ma jirin oo goobjoog aha meel cidlay kaga dhaqaaqday iyadaana saa u gashay qabri bayna gelinine meel bay kaga soo hartay haye marka qofka hadii xoolo ka maqan yihiin oo ku tirbeelo oo ku tacabeelo iyo xaaskina haynin xoolihiisa uu ka naxaayo shaqaysanayo saxara oo baawurkooda kuleelaad aragtay Sacuudi saxaruku meeshaas horta xanuunku uu ka bilowday wiilkii oo maaragtay saacad uu tir walaal waa sida maamada ay ii sheegtay aniga waxaan adeerkay baan u dacwoonayaa aniga يعني هاي بتشن هاي الشغل أدي بسلام مع السلامة ويل دعوته بعد ما عمل مفعته. أوكي ماشي أصدق الدعوة لهاد. قبل الدوس عاد بيعيشوا حياة يعني جماعته وهي بترى هذي مسج بيعيشوا قرطي وحنقول ولا المعن أنا قال يدل معي أي واحد نحس وحنقول هذا لمبر كذا قاعدة عن اسمه سنة عن كل جسم سيده هو يعني اللي جسمه ماشي قصة أي كده أي شيء العقد أتكون بحذي يعني سؤال وحال شيء إن ناس أي جوكتي شقيني إنه وح شقاء سنين العقد ويكون بحذي مركا إنا يعني سؤال ويديان ربعون ولا المعن يعني ما عرفت محل ده هي جورما كلا دماتين سوق وفر من كان يعني مسكحة سوا القدر سمي مزيج جود إن شاء الله ورحمه دي إنه كافره سي يعني ويجد أمرتي وحيال بدنا إنه ويديوان ربي ما أنا ربعي هذا لفتر كذا إنه لقوا خلد ما ودوا جبر سومالي لكن وحيد بتر سؤال ما كسينا نمبر كذا زهر وعدو بيساي بتر هذا مربي وعدو بيسا ساريوك ما كلها الله بتر بكوس وحنا ربعي هذا نحط كذا بالإنه اللي يستحقها waxay idhahdeen marka maxaa lahaay wax dad u leeyahay malay hada dad noqon isii xamal waa caawinaysi caawi aniga inaan wax yeelin isaga baafkiisa u sheegay tiri intaas aan su'aadna oo qoraal ah aan isdhaafsanay aniga ayada hadda iyo dan wiilkan waa wiil Soomaaliyeed